aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira in si degdeg ah ay u bilaabaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyay afduubkii dilkii gabadhii sargaalka ahayd ee ka tirsaneyd nabad sugidda Soomaaliya Ikraan Taaliil Faarax. wariyahana Maxamed Nuur Karaama ayaa warkaan inoo faahfaahinaya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa mar hadal ka jeedinayay hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland oo maanta ka bilaabatay teendhada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho ayaa soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kiiska Ikraan Taaliil Faarax oo sida la sheegay ku maqan gacanta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo NISA iyo arrimaha doorashooyinka dalka. ra'iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Farmaajo uu yahay mid iska dhamaan doona balse wax waliba ay ka horeeyaan dardargelinta howlaha doorashada dalka. sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in kiiska Ikraan Taaliil Faarax aan laga quusan isla markaasna ay heli doonto cadaalad. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana sheegay in kiiska Ikraan Taaliil laga warsugayo hay'adaha cadaaladda dalka iyo maxkamadda. cadaaladda dalka alxamdulillah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafada iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn ayaa loo qaadanin wax kasta waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iideysanin waxa tuhmada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalation ka samaynayo oo xagga siyaasadda wax weyn oo siyaasadda la isku hayo ma jirto ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhamaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashadaas la isugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynaa wadankana hor isku dhiigi hore ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markaas u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheennii Ikraan Taaliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan waana la xisaabtamayaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horan waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas ayaana wada deeqdo. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in doorashooyinka dalka ay si wanaagsan u socdaan isagoo faray madaxda maamulada dalka ka jira in markay dhamaato doorashada aqalka sare ay si degdeg ah u bilaabaan tan aqalka hoose ee xildhibaanada golaha shacabka. saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubbaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Somaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay un samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'adii ugu horeysay ee dastuuri ah dalkan uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo. khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble iyo sidoo kale kiiska Ikraan Taaliil ayaa ilaa hadda xal laga gaarin iyadoo ay socdaan doorashooyinka dalka. doorashada aqalka sare ee xildhibaanada gobolada waqooyi ayaana maanta ka bilaabatay magaalada Muqdisho waxaana la filayaa in markii dhamaato la guda galo tan doorashada banaadiriga si kadib loo sii aado doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada golaha shacabka. dhinaca kalena khudbadaha musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa goordhow waxay ka bilaabatay teendhada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho. wariyaheena Xamse Jaamac Xuseen oo ku sugan teendhada Afisiyoni ayaan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay.
ومعرفة حسين حتى واحد ستة صوغ الصعطات تانددا فيسيوني ربوت كان عدى هذا الجيدين المشرحين كقبلود وقوية أفرت الصلاة الصعدة كم تريدونا أغل كسرة هذا الجيدين إلى هذا وسعطة وها هذا قيب كم إذا حل باندا هذا وها لصو لقال حل جنة فسبا وحنا رجيني إن حل باندا كلا علي أي قد بدو يجون الجيدين دونان وحنا الله تطمئ كوبي تون كرسي أو أقل كسرة waxaana ku tartamaya dhammaan intii soo xareysatay amba isdiiwaan gelisay sidii ay uga qayb noqon lahaayeen 4 sano ee soo socda aqalka sare waxay iga warantaa yaa mas'uuliyiin ah oo ka baxsan xubnaha gobolada waqooyi oo goobta jooga amnigana waa sidee xaaladda amnigu aad iyo aad ayay u sugan tahay oo si fiican ciidamada amniga haddii ay noqoto kuwa ajaanibka iyo kuwa dalkuba ay u sugayaan hadal jeedinta musharaxiinta doorashada musharaxiinta aqalka gobolada waqooyi ee Somaliland ee ugu matali doona aqalka sare sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble sidoo kale Mahdi Guuleed ayaa dhinaca xukuumadda ka soo qayb galay iyo odayaasha dhaqanka ee dooran doona musharaxiinta aqalka sare u tartamaya baqa ra'iisul wasaaruhu waxay ku saabsanay sidii ay u dooran lahaayeen 12 kursi u tartamayaan 12 kursi oo loo tartamayaan musharaxiinta maanta hadal jeedintooda socoto sidii musharaxiinta xildhibaanada ugu wanaagsan amba sanatarada 4 sano soo socda Somaliland ku matali doona aqalka sare ay waxa sidoo kale si gaar ah uga dardaarmay guddiga doorashada gobolada waqooyi iyo odayaasha dhaqanka sidii ay doorashadaasi si hufan oo furan ay u dheelahay wariyaha keenan xamse jaamac xuseen oo xerada afisyooni jooga ayuu kaasi ahaa wixii warar ka soo kordhaa hadba xeradaasi iyo khudbadaha ay musharaxiintu jeedinayaan ama wixii warar ka soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli cafinta ee Soomaaliya kaasi oo ku qabsoomi doona aaladda fogaan aragga ah ee Zoom-ka inta uu socdo shirkan ayaa waxa diiradda lagu saari doonaa saameynta cudurka COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa shirka inta uu socdo waxay uga hadlayaan dhamaystirka shuruudihii ugu dambeeyay ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya shirkan ayaa waxa ka qayb galaya hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF bangiga adduunka iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya sida qoraal kooban uu ku sheegay wasiirka wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiir Beyle ayaa talaabadani waxa uu ku tilmaamay fursad weyn oo ogolaanaysa in adduunka lagala doodo fursadaha horumarineed ee Soomaaliya ee ku aadan dhanka dhaqaalaha dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer dadaal badan gelisay sidii looga cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin qaar ka mid ah wadamada caalamka iyadoo wasiirka maaliyadda uu hore u sheegay in dawladaha qaarkood ay cafiyeen deymihii ay ku lahaayeen Soomaaliya halka kuwa kalena ay cafin doonaan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa kol hore waxa uu shaaca ka qaaday in arrimaha deyn cafinta ay marayaan meel gabagaba isla markaana dalal badan oo ka mid ah caalamka ay Soomaaliya ka cafiyeen lacaga ay ku lahaayeen waxaana uu tilmaamay in inta dhiman la dhamaystiri doono iyadoo la marayo shuruudaha faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ku haleelay xadka Soomaaliya iyo Kenya xasan maxamed xuseen oo warkeena soo saaray ayaa faahfaahinaya afayeenka ciidanka difaaca ee dalka Kenya ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay qarax miino oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Lamu kaasi oo uu tilmaamay inay waxyeelo badan ka soo gaartay xubno ka tirsan al-shabaab afayeenka waxa uu shaaca ka qaaday in qarax uu ka dhacay inta u dhaxaysa Raskamboni sidoo kale Sariira oo u dhow sida uu sheegay Lamu County maalintii shalay oo Isniin ahayd afayeenku wuxuu xaqiijiyay in qaraxaas ay ku dhinteen ugu yaraan 15 ka tirsan al-shabaab kadib markii ay miinada la kacday gaari ay la socdeen sida uu sheegay afayeenku sidoo kale waxa uu intaas ku daray in raggaasi ay ahaayeen laba kooxood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana mid ka mid ah kooxahaasi ay dhigeen miinada kadibna kooxdii kalena ay ka warhayn ay la kulmeen qaraxa sidaasna ay miinada ku haleeshay waxa uu sheegay in qasaaro badanna uu soo gaaray xubnihii ka tirsan al-shabaab ee halkaasi mariyay afayeenku waxa uu yiri waxaan xaqiijin karnaa inay dhinteen 15 ka tirsan al-shabaab waxay ahaayeen laba kooxood mid ka mid ah kooxaha ayaa wadada dhigtay miino si ay u la egtaan balse kooxda labaad oo aan ka warqabin miinada wadada ku jirta si ay u maraan way garan waayeen wadadii gaarigii ay wateen ayaa dul maray oo qarxay dhammaan 15kii ka tirsan al-shabaab ee gaariga saarnaa waa ay geeriyoodeen ayuu yiri afayeenka ciidamada difaaca ee dalka Kenya
waxaa kale uu afhayeenku intaas uu ku daray haddii cadowgu dhinto taasi waa inoo muhiim dadka deegaanka ma niyo jibin hay-adaheena amniga waxaa ka go-an buu yidhi inay ilaaliyaan amniga shacabkii hantidooda dhan kalena ma jirto ilaa hadda wax wara oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan hadalkan ka soo baxay Kenya balse waxaa jirtay in shalay ay al-shabaab baahiyeen in qarax ka dhacay Lamu ay ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidamada booliska ee dalka Kenya. aadan barre ducaale oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qiray in dalal ay Kenya qayb ka tahay ay faragelin ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya ka socda. wariyaheenna Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkaan Nairobi nooga soo diray. xildhibaan aadan barre ducaale oo laga soo doortay ismaamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya isla markaana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda dhexe ayaa waxa uu waraysi gaar ah siiyay Sunday Nation wargeyska lagu magacaabo isagoo kaga hadlay xaaladda gobolka gaar ahaan xilligan iyo cakirnaanta siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya. xildhibaanka ayaa ugu horeyn waxa uu ku nuuxnuuxsaday in madaxweyne Farmaajo sifo sharci darro ah uu ku joogo villa Soomaaliya isla markaana muddo xileedkiisa uu dhamaaday. wuxuuna muujiyay in Ethiopia oo uu garab ka dhiganayay 4 sano aynu ka soo gudubnay ay wajahayso xiisado qowmiyadeed oo halis ah halka Suudaan xaaladeeda allow sahal ay tahay. Kenyana uu ku tilmaamay inay galayso doorasho taasi oo uu tilmaamay inay ku mashquulsan tahay. wuxuu ugu baaqay wadamada dariska oo ay Kenya ugu horeyso in faragelinta laga daayo doorashooyinka Soomaaliya. waxaana wariyihii waraysiga ka qaadayay aadan barre ducaale uu weydiiyay bal inuu isagu la socdo wax faragelin ah oo lagu hayo xilligan doorashooyinka Soomaaliya. wuxuuna sheegay in Kenya xitaa ay faragelin ku hayso oo uu ka dalbanayo hoggaanka sare ee Kenyaanku in ay u madax baneeyaan shacabka Soomaaliyeed inay doortaan hogaamiyaha ay iyagu u baahan yihiin taasi oo ah xaq dastuuri ah oo ay iyagu leeyihiin. waxaa jira dawlado fara badan oo faragelin ku haya Soomaaliya oo ay Kenya ka mid tahay ayuu yiri. waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo la daalaa-dhacaya dhibaatooyin kala duwan sida dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sugidda ammaanka guud ee Soomaaliya. wuxuu ka digay in xiisado ay ka dhashaan doorashooyinka wuxuuna tilmaamay in taasi ay halis gelin karto guud ahaanba amniga gobolka. hadalka aadan barre ducaale ayaa waxa uu ku soo aaday xilli haatan uu wanaagsan yahay xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. dhawaana dib loo furay safaaradihii Muqdisho iyo Nairobi ee labada safiir ee labada dal kala matalaya ay ku shaqaynayaan. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye. aynu ku bilownay dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta mar kale tijaabisay gantaal nooca balaastikada ka samaysan ah oo ay ku tijaabisay badda dhanka Japan. waa gantaalkii saddexaad oo muddo bil ah gudaheeda xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso. warbaahinta ayaa laga daawaday war lagu sheegay in lagu guuleystay tijaabada gantaalkan oo xukuumadda Kuuriyada Waqooyi farsamaysatay. wakiilada dalkan ka socda ayaa qaramada midoobay oo shalay u sheegay inay xaq u leeyihiin inay tijaabiyaan gantaalaha ay farsamaystaan. Mareykanka iyo dawladaha dariska la Kuuriyada Waqooyi ayaa cambaareeyay tilaabadan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay kula gaara ayuu ka leeyahay xaaladda gantaalaha ay ku tijaabinayso dawladda Kuuriyada Waqooyi. ugu dambeyntiina saaxiibayaal hoggaanka ururka Taliban ayaa sheegay in ay cagta mariyeen saldhigyo ay dalkaas ku lahaayeen ururka hubeysan ee Daacish iyo ururo kale oo hoostaga. afhayeenka Taliban Sabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in howlgallo gaar ah oo ciidamadoodu ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolada Helmand iyo Masaara Shariif in lagu burburiyay saldhigyo ay lahaayeen ururada Daacish iyo ururka kale ee ISKB la yiraahdo kuwaasoo dhowr weerar ka geystay dalkaas tan iyo markii talada wadankaas uu qabsaday ururka Taliban. afhayeenka Taliban waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan dagaalyahano Daacish iyo ISKB oo dhankooda isku dhiibay. warbaahinta Afghanistan ayaa baahiyay dagaal 5 cisho ee la soo dhaafay ka dhacay dalka Afghanistan in ay Taalibiintu tageen dhul buuraley ah oo Daacish iyo saaxiibadooda saldhigyo ku lahaayeen mana jiro wax war ah oo dhanka Daacish ka soo baxay.